بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ugu horeyn gudoomiyaha xisbiga kulmiye xubnaha hoggaanka haweenweynaha xisbiga kulmiye ee madashan aanu ku marti qaadnay iyo dhammaan marti sharafta kale dhammaantiiba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. farxad weyn bay ii tahay maanta in haweenweynaha xisbiga kulmiye oo mudan mahadcelin iyo bogaadin aan ku marti qaado munaasabadda xafladdan. ujeeddada iyo dulucdu ma labalabaysna waa mid qura, waxay daaran tahay mahadcelin iyo bogaadin howlaha xisbiga kaalintaa kaga jirtaan ee muuqata. waxaa kaloo iyaduna daaran tahay guubaabo iyo degdeggelin howlihii xisbiga maadaamaad tihiin udub dhexaadka xisbiga kulmiye. haweenka xisbiga kulmiye iyo dhallinyaradu waa dadka mudanka ah, waa kuwii shalay guusha keenay, waa kuwa beritana guusha keeni doona. kulmiyana waa sanadka uu dheer yahay. xisbiyadii la tartamay shalayna waa kuwu dheeraa, maantana waa kuwu dheeraan doona haddii alla ka dhigo. kulmiye waa xisbigeennii, dhammaan kulmiyaynu nahay. kulmiye wuxuu yaqaanaa tartanka dhexdiisana wuu yaqaanaa, boogihiisa siduu dhaynana wuu yaqaanaa. xisbiyo badan ayaa ku burburay oo ku jabay oo aan mahaaladdaa iyo xirfaddaa iyo aqoontaa lahayn. marar badan baa la odhan jiray xisbiye waaran ha loo sameeyo dhaawacooda iyo dhimashadooda iyo burburkooda. haddana waxaa beenisay aqoontii kulmiye, waayo waxay isugu yimi haldoorkii ummadda ayaa kulmiye isugu yimi. halkanay maanta ka muuqataa raggii madaxweynayaasha u tartamaya xaq baanay u lahayn. walaalkeen cabdicasiis maxamed samaale, xildhibaan kijaanle, dhammaantoodba waxay garwaaqsadeen oo ka tanaasuleen. raggu waa tartamaa. siyaasadda haddii lagu kala adkaado ceeb maaha. ninka aan siyaasiga ahayn ee aqoonta luxdan lahayn baa ceeb u yaqaana. guuldarrada siyaasaddu waa lib weeye inuu qofku qaato. markaa waxa weeye habaryaan iyagana leenahay. waxaynu gelaynaa marxalad siyaasi ah. tartan adag ayaa dalka ku soo foole. somalilan waxaa loo gudboon inaynu si u tartanno si nadiifa oo aqoon sare leh oo bisay leh oo aynu macnaheedu daaran yahay lafaha burxaragadana ha ka tegin. waa inaynu aqalkaynu ku jirno ee qarannimadeenna waa inaynu gudihiisa ku tartannaa. waa inaynu qarannimada ilaalinaa, nabadgelyada ilaalinaa. tartankana waxaynu nahay xisbiyo walaalo oo cadka iyo hoggaanka dalka ku tartamaya oo aan waxba isu reebin. waxba yeeli mayna qarannimada, amniga, deganaanshaha iyo midnimada ummadda. inay sidaa u fahmaan xisbiyada mucaaradku ayaa muhiima. innagu waxaynu nahay xisbi waayaraga oo waxaa yaqaanay. waxaynu nahay xisbigii la soo tartamay, xisbigii talada dalka hayay 8 sano. waxaynu nahay xisbigii u dulqaadan jiray duruufihii adkaa iyo cadaadiskii. dalkana umaynaan dumin, ummaddana umaynaan kala qaybin. sabir iyo dulqaad iyo garasho iyo laxajeclo ayaynu kaga soo gudubnay duruufihii dalka ka dhacay. kulmiye isdhiga mayno, dhayalsanna mayno. waxaynala tartamaya xisbiyo iyo raginala mida. libtagaysa siin mayno, odhan mayno innagaa helaynaa 100%. waxsaynu leenahay kulmiye cid maanta ka cudud weyne ma jirto. waa duluciyo abbaar runa. cid ka cudud weyne maanta kulmiye ma jirto. waayo muxuu dugsanayaa kulmiye? wuxuu dugsanayaa haweenka halkaa fadhiya iyo intaynaga maqanay haldoorka ee khibradda iyo waay aragnimada hawlwadeennadiina leh idinkii iyo dhallinyarada ayaanu dugsanaynaa.
kuwii shalay guusha keenay baa tiri maantana guushii baanu filaynaa inaad keentaa wuxuu kale kulmiye dugsanayaa wuxuu dugsanayaa kulmiye maaha xisbi cida jooga oo mucaarada oo ilayliya oo jarabarada waa xisbi gaamuray oo 6 sano iyo dheeraad talada dalka hayay 8 sanana xisbi mucaarada buu ahaa waxaa ku duugan aqoon iyo waayo-aragnimo fara badan waxa weeye waa xukuumaddii qaranka waxaynu qabanay himilooyinkii iyo horumarkii ummaddaynu xaqiijinay waxaynu bulshada u ballan qaadnay baynu rumaynay wejigalax ma qabno dadka haddaynu isnana ku noqdana khajili mayno waxaa inagoo faanayna oo fooyayna ayaynu dadka codka weydiinaynaa meel walba waxbaynu ka qabanay meel kasta dhagaxaynu dhignay baynu ka dhabaynay inagu waxaynu haynaa markaa waxaynu loo gola nimaadno ee lama nihin xisbiyada cusub ee yaryar ee waraaqaha cadcadsita ee haddiina la doorto waxaynu qaban doonaa kaa iyo ka ee aqalada khayaaligaa dhisaya inagu waxaynu dhisanaa aqalo runa oo waxaynu leenahay kaasaanu dhisnay kaana waa dhisnay haddii gadololo meelo ka muuqatana darbadda labaad baanu kufayn doonaa taana waxaynu leenahay inagu xisbigii talada dalka hayay oo wax qabtay baynu nahay maxaa muujinaya inaynu nahay xisbi wax qabtay ee waa taa muuqatay ummaddu inoo qarayso ma aha ciddana markhaatiga weydiinaynaa kuwaynu isayno waa bulshada codbixiyaasha ee maanta inagu sheegta xukuumaddii iyo xisbigii horumarka ayaynu markhaatiga weydiinaynaa waxaa lagu gartaa axmed siraayo waa madaxweynaha waddanka madaxweynaha ummaddu ma qariso inay hiifto iyo inay nacday xisbiga talada hayana lama qariyo in la nacayo in la hiifay dunida waxaa la yidhahdaa unpopular president ama unpopular party xisbi karaamadiisu hoos u dhacday ama madaxweyne aan markaa isagoo muddaxileedkiisii sare dhammaanaya aan magac weyn helin meel alla meeshuu madaxweynuhu soo maro cidima abaabusho meel walba ummaddu intay isu soo taagtabay salaata maxay u salaamayaan waa rabitaan iyo jacaylka quluubta dadka lama iibsado laaluush lagama bixiyo waxaa lagu helaa mahaarad iyo aqoon xeel dheer baa lagu helaa waxaynu leenahay kulmiye wuxuu dheer yahay aasaasihii xisbigan hogaamiyihii qarankan ayaa qalwada dambe inoo fadhiya waxaynu leenahay mustabeed wixii inaga qalloocda inoo toosiya ma laha xisbiyada kale waa nasiib uu kulmiye dheer yahay kulmiye muxuu kaloo dheer yahay waxaynu leenahay maanta hogaamiye cusub iyo murashax waayo arag ah khabiir ah axmed siraayo raggii madrasadiisa ka aflixay ah ee uu soo tababaray hogaamiye adaga sanke adag baynu maanta wadanaa taana waynu leenahay taasi waxay muujinaysaa waxa kalaynu leenahay taageerayaal fara badan oo kulmiye leeyahy kulmiye doorashooyinkii soo taxnaa sooyaalkeedoo dhan 6 gobol bay ahayd 4 gobol marna laguma tartamin kulmiye wuxuu ahaan jiray number 1 maanta waxaynu leenahay awdal iyo saaxila waxaynu doonaynaa inaynu maanta hoggaankooda qabsanno geopoliticskuna wuu isbedelay baynu leenahay kulmiye ma lumin taageerayaashiisii yaa laga doonayaa fariimaha waxaa laga doonayaa haweenkiina qiimaha badan halka fadhiya intaasaan ka odhanaya waxaan leeyahay kulmiye waa xisbi khilaafkiisii dhameeyey maanta meel wax u wadaaba waxaa meelaha aan ka maqlaynaa jabaq ah khilaaf iyo dagaal baa kulmiye ka dhex socda waxaa la isku hayaa guddoomiyihii xisbiga waxaa la isku haya maxamuud xaashiye maxamed kaahin iyo rag kale waxaanu caddaynaynaa oo far waaweyn ku dhigaynaa maanta kulmiye hal loolanba ku jiraa loola labaad kuma jiro kulmiye wuxuu ku jiraa loolanka siduu u heli lahaa talada hoggaanka dalka mar labaad loolankaasuu keliya ku jiraa waxaynu dhammaanteen dhisaynaa muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saydici loola labaadoo dhexdeeda ku jiraa ma jiro aniga iyo maxamed kaahin waxaanu lahay 2 nin oo saaxiiba isaguna waa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye aniguna waxaanahay wasiirkii madaxtooyada labadayadu waxaanu fadhinaa kaalin adag oo la yidhaaho biyo culusta malaha dadka qaar baan aqoone marka geela la waraabinayo waxaa meesha adaga wadaanta culus la dhigaa nin laxaad leh oo madaalo ah halkaasaanu labadayadu fadhinaa waxaanu nahay kuwa muuse hadduu dhismana taariikhdooda saamaynta
keenay ay nagu soo dhacdo wadaagtuna taariikhda kuway xusi doonto raggu ceel wadaag ka wada dowlinaya oo wadaag wada jiidaya haddaanay si wacan u wada jiibtiyo taanta isula helin oo ay midba ka kala qardabo oo isriixaan ma guulaystaan aniga maxamed kaahi waxaanay raggaa wadaagka wada jiidaya guddoomiyaha xisbiga kulmiye maanta tartan kama jiro dee guddoomiyahaynu waa ka halka fadhiyo oo muuse bixi waxaan leeyahay waxa uu dacaayadaha iyo maaweelooyinkaa wada dad muxuu ahaayey xisbiga kulmiye doonaya inay cudur dhex geliyaan waxaan leenahay reer kulmiye dacaayadda iyo cudurkaa iska ilaaliya ilaahay baynu ka magan galay baan leedahay waxaan ku soo ururinayaa aad iyo aad baan idin bogaadinayaa dhammaantiina waa mahadsantihiin hambalyo baan leeyahay dhowaan haweenka boga waana bogaadinaya asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزير محمد حاشي عبد الله مهدسي هاي قبل بين الجوغنا قدومية هاي قدومية